maalin dhaweyto magaalo gobolada dhexe ku taala muddo imika 2 bilood 3 bilood laga joogo ayaan diyaarad ka raacay xamar ba ku socdaa nin baa isoo ag fadhiistay markaa ninkan waa nin xanuunsan mara ku duuban saasoo markaa kursiga ugu tirsan yahay nin walaalkii oo la socday baa yimid oo igu yiri sheekh ninkan dhaawac baa gaadhay u ducee markaas aadi waa insha Allah Allah inoo shaafiyo waan u ducaynay markaas aadi maxaa gaadhay madaxa markii marada laga qaaday faas baa lagu googooyay faas xagga min Allah inuu ka baxay markaas aadi war qofka sida u dilay muxuu yahay muxuu ninkan sida ugu dhintay wuxuu awru isagu lahaaba awru nin kala lahaabo ka cunay buu yiri ninkii awrka kale la cunay lahaa ayaa ka nafaas ku googooyay buu isagoo hurda waa waxaan indhahayga ku soo arkaan inii sheegaya halkan maanta marayno dadnimadeennii laba awro islaysay ayaa qof bini aadana qudhala kaga jaraya maanta halkan marayna baleeg waa bashar bani aadam khalqiga kaloo dhan ilaahay abuurkooda markuu sheeganayo ilaahay waa ka yidhahda walaqad khalaqna as-samaa wal-arda wamaa baynahuma fi 6 ayaamin wamaa massanaa min luguubin wax kastoo ilaahay abuurkooda markuu sheeganayo khalaqnaa buu yidhahdaa laakiin aadam calayhi salaam abuurkiisa markuu ilaahay sheeganayay daatadiisa ilaahay u nisbayo wuxuu yidhi khalaqtu biyadaya khalaqtu basharka qiimaha leh ayaa maanta adduunka dusheeda halkaas ay marayaan muslimiinta ka warrama qiimo dhac awr cunay in qof bini aadana loo dilo xagga min Allah inuu ka badbaaday inuu kaga gooyo doonaya lagu leeyahay la zawalu dunya ahwanu ala Allah min ihraq dam almuslim bighayri haqqin bu nabigu sallallahu alayhi wasallam adduunyada dhan oo meesha ka baxdo oo la waayo ilaahay agtiisa waxay kala fududahay buu nabigu yiri dhiig qof muslim oo xaq dara lagu daadiyo buu rasuulku yiri dhiig muslima dagaal baa la galay jihaad nin dhinaca mushrikiinta ka soo jeeday baa dhufays ku dhacay nin ansaariya ku qabtay seefti markuu seefti lagu qabtay u arkay in la hayo ayuu iska yiri la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah u ka daayay markaa ninkii ansaarigii dagaalkiiba hore ka sii galay ninkii kalmadan yiri dhufayska ku jiray markuu arkay in laga sii jeestay intuu ka daba tagay buu boqnaha ku gooyay seef haddana dhufayskiiba ku dhacay ku kala ku qabtay seefti kii kalena markaas uu shahaado wuxuu ashhadu an la ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah u ka jeestay kiina qortu ka gooyay Usaama ibn Zayd ba arkay Allah raali ka noqdeen kolku seefti ku qabtay buu shahaatay kama joojina qortu ka gooyay Usaama ninkii dagaalkii markuu dhamaaday warbixintii baa nabiga loo gudbiyay calayhi salaatu wassalaam saadiqul masduuq wa qaa'idul jaysh asaga markaa loo celiyay warbixintii jihaadka sidoo u dhacay wixii qaladaad halka ka dhacay nabiga waa loo sheego la yiri nin ashahaatay ayuu Usaama dilu qor madaxa kaga gooyay seef markaa ba nabiga wajigiisa ba bedel calayhi salaatu wassalaam ya Usaama أقتلته بعدما أن قال لا إله إلا الله ومركو كلمة داير كدم ياد شيء مركز إنه كان متعوذا بها يا رسول الله أكم مجنجلي لبننا مسلمين نهرتيبو كد جيو قرتك جوي مركب النبي كل قلبي جيسين تود الله عيسي ما ذقاتينه كلمة دب أجري إنه عربك كيري halkii uu nabigu fadhiyo uu ka kacay caddarteed markaas uu Usaama nabiga xaynka qabsaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaa rasuulallah ilaahay dam dhaafi weydii ilaahay dam dhaafi weydii markaa uu nabigu ku yaa Usaama maalinka qiyaamaha seed yeeli doonta markuu ninkaas banka qiyaama uu la yimaado asagoo kalmada ku celcelinayo la ilaaha illa allah seed yeeli doonta oo fiirso
waxaan tamaniyey buu yidhi usaamata binu zayd wa xibbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam isagiiyo aabbihiiba waa labada nin ee nebi maxamed saxaabadiisa ugu jeclaa weeyaan waxaan tamaniyey buu yidhi maalintaa intii ka dambaysa islaamnimada in lai xisaabin lahaa ayaan tamaniyey buu yidhi intii ka hore waxba layga soo qaadeenba kelmaddani waa kelmad culus ayadaa markaa qofka bini aadanka qiimaha u yeelaysa ayadaa qofka dhiiggiisa ilaalinaysa ayadaa qofka maaragtaan cirdigiisa ilaalinaysa ayadaa qofka bini aadanka shareecaddu ay ku miisaamaysaa low wudicat samaawaatu sabcu walaraadiinu fii kafatin walaa ilaaha ila allahu fii kafatin larajaxat bihinna laa ilaaha ila allah waa nebi muuse calayhi salaam ayaa rabbigii ku yidhi kelmadaan kugu barya isii markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah dheh yaa rabbi kelmaddan addoommahaaga wan wanaagsan oo dhan baa wada isticmaalee tu aniga ii gaaramaad isiisid markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa toddobada cer iyo toddobada dhul haddii miisaanka kafad la saaro toddobada cer imsaa makhluuqaad ku nool toddobada dhul imsaa khalqi ku noole khalqi haysaa waxaasoo makhluuqaada haddii la soo qaado kafad la saaro laa ilaaha ila allahna kafadda kale la saaro laa ilaaha ila allah baa ka culus baa ilaahay yidhi innaka zamankeennan aragtidaas badishay maadaama zamankeennan dadku maaddada ay ku dadaaleen waxaa dhacday qofka bini aadanka in lagu qiimeeya maaddadiisa zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa kor maray iimaanka iyo maaragtaan tacalluqa dadku ilaahay ay la leeyihiin markaasaa qofka muslimka lagu qiimeynaya iimaankiisa iyo camalkiisa